beesha haashin ee caasimada halkan ugu samaysay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo marti sharafta faraha badan ee la socota waana mid ay dhaqan u lahaayeen annaguna haddaannu habar jeclanahay kama maqnaanno dee suldaan barre meeshuu joogo waayo wax badan baa naga dhexeeyey yaa maanta hawlo badan baan lahaa wasiir qabya tiraa shalayta ii sheego yidhi halkaa hawl baa ka jirta wax alla wixii aan hawl hayay dhulkaan soo dhigay hadal badan anigu halkan ka odhan maayo inaan arrinkaa ka uga mahadnaqo beesha iyo salaadiinteeda iyo aqoon-yahankeeda iyo siyaasiyiinteeda ayaan doonayey waxaan kaloon doonayaa maanta inaan kelmad halkan ka idhaahdo waxaanu kelmaddaasi waxay ku wajahan tahay beryaha kan hadal baa socday hadalkaa kamaannu jawaabin ama faysal cali waraabe ha ka hadlo ama xisbiga waddani ha ka hadlo ama beela ha ka hadleen waa shirkii burco arrinkaa aad iyo aad baa looga hadlay maanta fursaddan waxaan doonayaa inaan uga hadlo oo kelmado kooban ka idhaahdo horta annagu waxa weeyaan nimayowda xisbiyaynuu gudubnay bahalka ficilka la yidhaahdo habar jeclo lama tuso ficil baa nala tuso in dhowaydba wax la yidhahdo garxajis baa boodhka laga tumay waad ogaydeenoo ilaa raggii xamar iyo haddii allabaleeya federaalka huwanaa waa inanba is-aaminin ee cafiska aynu dhowaan u fidinnay yaa baa garhwadeen ka noqday innagaynan siyaasaddii hubsan saaxiibkay buubbaa iyo taladiisii markay noo muuqatay annaga haddii sahankii federaalku noo muuqdana jeegaantii dib baannu ula soo baxnaa ficilkuna cidina noogama dhagsiisa waxa weeyaan runtii waxaannu doonaynay in xisbiya lagu tartamo shirkayaga far badan baa lagu guday waxaan doonayaa maanta inaan halkan shacabka somalilanna uga caddeeyo beesha halkan casumaadda ku samaysana uga caddeeyo annagu shir beelaysan maannu qaban sidii xisbiyada loogu gudbay xisbi inaannu kala taageerro oo xisbiyada la taageero mooyee umaannu gudbin waad ogaydeen waxa la qabtay shir garxasiis baa la qabtay kolkii la qabtayna waxa loo baaqay garxajis baa loo baaqay waad ogaydeen waxa lagu duulay booramaa lagu duuloo beel ahaan baa loogu duulay waxa taa ka horraysay annaga beel ahaan baa noogu yeedho ciddii u horraysay noo timi beesha garxajis bay ahaydoo beel ahaan noogu timi horta qabyaaladda ciddii go'a ka rogtay nafsigeeda iyo maraqay ka hesho ha shushubato horta waxaan leeyahay waa laga rogay dhulbahantaa lagu duulay wafdiga saaxiibkay suldaan maxamed xirsiqani hoggaaminayo ee laascaanood fadhiya iyo wafdiga saaxiibkay suldaan cismaan cali madar uu hoggaaminayo ee beelaha garxajis ka kooban ee ciidagale iyo habaryoonis lagu mideeyey ma qur'aan bay akhriyayaan dadka ma qur'aan bay u soo akhriyayaan miyaanay qabyaalad akhriyayn annaga haddii sacad muuse maalin noo yimi aannu nidhi codkaannu idin siinaynaa oo aannu hore isu siin jirray ma kabcadaannu duminnay waar horta somalilaney annagu sida qoladan sacad muuse doobtu ka maqan tahay bilaa doob ma nihine labada dacood baannu ka ridaynaa waannu caddaysanaynaa gartayda bal nimanka iyagaan beel u tegin qabyaaladii dhabarka loo saaray ee la leeyahay somalilan bay qabiil ku soo celiyeen yaa saaxiibkay faysal cali waraabena malaa waxaa habboonayd yaa inuu xisbigiisa cadaaladda akhriya habboonaydoo isaga waxba odhan maayo waanu xeebanayaa waa saaxiibkae inuu caddeeyo cidda qabyaaladda somalilan ku hanjabtay waxaad arkayseen shalay oo u dambaysay mujaahidkeennii axmed mire wuxuu kartaminayaa maqlayseen waynu is ognahay axmed mire reernimuu ku hadlayey oo ku hanjabayey somalilan way arkaysaa waa saaxiibkayo laakiin annaga dulqaadkaa habar jeclanala ku yaroo
أنت أنا كرسي قايدين أحمد ميران نومه هنشبين مركان دوني نومه هنشبين والله سعد موسى برورة يا هبرة ولا فرا برورة كويسة أيوة واقع عقال دجال كوكي ما أنت أنا هنشبيه أنا جماعة أنت أنا حلك هاينا أنا عيدنا نومه هنشبي كرتو ويا ضلغات كان نقير هذه أدبان السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا هاشم عاصمات halkan ugu sameysay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo marti sharafta faraha badan ee la socota waana mid ay dhaqan u lahaayeen annaguna haddaanu habar jeclanahay kama maqnaano de suldaan barre meeshu joogo way wax badan baa naga dhaxeeyay ya maanta hawlo badan baan lahaa wasiir qabyad tiraa shalay tii sheego halka hawl baa ka jirta waxa la wixaan hawl hayay dhulkaan soo dhigay hadal badan anigu halkan ka oran maayo inaan arrinka ka mahadnaqo beesha iyo salaadiinteeda iyo aqoon-yahankeeda iyo siyaasiyiinteeda ayaan doonayay waxaan kaloon doonayaa maanta inaan kelmad halkan ka idhaahdo waxaanu kelmaddaasi waxay ku wajahan tahay beryaha kan hadal baa socday hadalkaa kamaanu jawaabin ama faysal cali waraabe ha ka hadlo ama xisbiga waddani ha ka hadlo ama beela ha ka hadleen waa shirkii burco arrinkaa aad iyo aad baa looga hadlay maanta fursaddan waxaan doonayaa inaan uga hadlo oo kelmado kooban ka idhaahdo horta annagu waxa weeyaan nimayow de xisbiyaynuu gudubni bahalka ficilka la yidhaahdo habar jeclo lama tuso ficil baana la tuso in dhowaydba wax la yidhahdo garxajis baa boodhka laga tumay waad ogeydeenoo ilaa raggii xamar iyo haddii allabaleeya federaalka huwanaa waa inanba is aaminin ee cafiska aynu dhowaan u fidinnay yaa baa garhwadeen ka noqday innagaynan siyaasaddii hubsan saaxiibkay buubbaa iyo taladiisii markay noo muuqatay annaga haddii sahankii federaalku noo muuqdana jeegaantii dib baannu ula soo baxnaa ficilkuna cidina noogama dhagsiiso waxa weeyaan runtii waxaannu doonaynay in xisbiya lagu tartamo shirkayaga far badan baa lagu guday waxaan doonayaa maanta inaan halkan shacabka somalilanna uga caddeeyo beesha halkan casumaadda ku samaysana uga caddeeyo annagu shir beelaysan maannu qaban sidii xisbiyada loogu gudbay xisbi inaannu kala taageerro oo xisbiyada la taageero mooyee umaannu gudbin waad ogaydeen waxa la qabtay shir garxajis baa la qabtay kolkii la qabtayna waxa loo baaqay garxajis baa loo baaqay waad ogaydeen waxa lagu duulay booramaa lagu duulo beel ahaan baa loogu duulay waxa taa ka horraysay annaga beel ahaan baa noogu yeedho ciddii u horraysay noo timi beesha garxajis bay ahaydoo beel ahaan noogu timi horta qabyaaladda ciddii go'a ka rogtay nafsigeeda iyo maraqay ka hesho ha shushubato horta waxaan leeyahay waa laga rogay dhulbahantaa lagu duulay wafdiga saaxiibkay suldaan maxamed xirsiqani hoggaaminayo ee laascaanood fadhiya iyo wafdiga saaxiibkay suldaan cismaan cali madar uu hoggaaminayo ee beelaha garxajis ka kooban ee ciidagale iyo habar yoonis lagu mideeyey ma qur'aan bay akhriyayaan dadka ma qur'aan bay u soo akhriyayaan miyaanay qabyaalad akhriyayn annaga haddii sacad muuse maalin noo yimi aannu nidhi codkaannu idin siinaynaa oo aannu hore isu siin jirray ma kabcadaannu duminnay waar horta somalilaney annagu sida qoladan sacad muuse doobtu ka maqan tahay bilaa doob ma nihine labada dacood baannu ka ridaynaa waannu caddaysanaynaa gartayda bal nimanka iyagaan beelu tegin qabyaaladii dhabarka loo saaray ee la leeyahay somalilan bay qabiil ku soo celiyeen yaa saaxiibkay faysal cali waraabena malaa waxaa habboonayd yaa inuu xisbigiisa cadaaladda akhriyaa habboonaydoo isaga waxba odhan maayo waanu xeebanayaa waa saaxiibkae inuu caddeeyo cidda qabyaaladda somalilan ku hanjabtay
waxaad arkayseen shalay oo u dambaysay mujaahidkeennii axmed mire wuxuu kartaminayaa maqlayseen waynu is ognahay axmed mire reernimuu ku hadlayay oo ku hanjabayey somalilan way arkaysaa waa saaxiibkayo laakiin annaga dulqaadka habar jeclana la ku yaro intii aannu kursiga haydinay axmed mire nooma hanjabin markaannu doonayna nooma hanjabin goladan sacad muuse baruura iyo habara wale faraha baruuraha ku haysata ayuu waagii cigaalla dagaalka ku kiciyey maantana u hanjabayaa annaga maaha intaannu xilka haynana annaga cidina nooma hanjabi karto waayo dulqaadkaa nagu yar aad iyo aad baan idiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu